Salam dawa dayal, kusud dawada wararka Geeska Afrika. Mantawahan ka hadli dona muranko dhexeeya Soomaaliya iyo Etoobiya. Heshiiskii dawan dhexmaray Itoobiya iyo Somaliland ayaa dhaliyay xiisad siyaasadeed oo weyn. Heshiiskan wuxuu xambaarsan yahay qodobo muhiim oo ku saabsan ganacsiga iyo amniga, taasoo soo jiidatay indhaha caalamka balse dhanka kale ka araysisay dowladda Soomaaliya. Madaxda Soomaaliya waxay ku doodayaan in heshiiskaasi yahay mid sharci darro ah, maadaama Somaliland aysan weli helin aqoonsi caalami ah oo madax bannaan. Bishii koowaad ee sanadkan, madaxweynaha Itoobiya, Dr. Abiy Ahmed, iyo madaxweynaha Somaliland, Muuse Bihi Abdi, ayaa ku kulmay magaalada Addis Ababa, halkaas oo ay ku kala saxiixdeen heshiisyo dhowr oo ku saabsan iskaashiga dhinaca badda iyo aqoonsiga. Tani waxay keentay in dowladda Soomaaliya ay si aad uga hortimaado iyadu ku baaqday in heshiiska la joojiyo. Heshiiskani wuxuu sidoo kale saameyn ku yeeshay beesha caalamka, gaar ahaan waddamada daneeya gobolka sida Maraykanka iyo Midowga Yurub. Waxaa jira su'aalo ku saabsan sida mustaqbalka gobolka uu noqon doono haddii aan khilaafkan la hallin. Dowladaha deriska ah iyo ururada caalamiga ayaa la filaya inay dhexdhexaadin ka galaan xaaladda. Hadda, xaaladda ayaa mid akiran oo aan la saadaalin karin. Walba oo daneynaya nabadda iyo horumarka gobolka wuxuu rajaynayaa in wada hadal iyo isafgarad lagu halliyo khilaafkan cusub. Haddii aad jeceshahay muuqaalkan, fadlan ku xidhnow kanaalkayga Mursal Siid si aad ula socoto wararka iyo dhacdooyinka ugu dambeeya Geeska Afrika. Mahadsanid daawashadaada.